haweenweynaha saddexda xisbi qaran ee gobolka awdal ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen gobolkaasi waxa ay baaqo ku direen golaha wakiilada Somaliland iyo golaha guurtida iyaga oo ka dalbaday inay ansixiyaan xeerka kootada haweenka ee ay dhowaan ansixiyeen golaha wasiirada Somaliland isla mar ahaantaana loo gudbiyay golayaashaasi. haweenka gobolada Somaliland ayaa maalmahanba isu soo baxayo iyo baaqo kala duwan oo ay dirayeen golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka Somaliland waxa ay kaga dalbanayeen inay ansixiyaan xeerka kootada haweenka. wasiira Cabdi Faarax oo ah gudoomiyaha haweenka nagaad ee gobolka awdal ayaa iyadoo ugu horeyn halkaasi ka hadashay waxaana ay baaq u dirtay golayaasha guurtida iyo baarlamaanka Somaliland oo ay ka dalbatay inay ansixiyaan xeerka kootada haweenka. waxaan maanta iskugu nimidnay oon shirkan jaraa'id qabanay shir khayr qaba Allah inooga dhigay inaan ka hadalno kootadii haweenka uu siiyay dastuurka Somaliland taasoo loo kala hadhin saddexdii xisbi. waxaan marka hore salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxweyne ku-xigeenkeena. mar labaad waxaan salaamayaa wasiirada inoo ansixiyay ee inoo ogolaaday inay siiyaan dumarka qaybtooda. iyagu inama siin oo way noo ansixeen laakiin dastuurka Somaliland xeerka ayaa u yaala in haweenku la siiyo kooto u gaara kana qayb galaan talada dalka. maanta waad ogtihiin hooyay dhibta ku dhacdaa dheeftana waxba kuma laha wadanka ama maxay ahayd wadanka taladiisa. marka waxa weeyaan kootada waxa maanta dhexda u xidhatay haweenka nagaad ka shaqeeya ee muddada badan u soo halgamayay. magacaygu Maryam Sheekh Daahir Geelle waxaan ahay gudoomiyaha xisbiga wadani ee awdal. waxaan ka hadlaynaa halkan waxa weeyaan maanta dantii guud ee haweenka Somaliland oo dhan dantii guud baan ka hadlaynaa anagoona u eegaynin xisbi maanta oo gobol ahaan haween ahaan Somaliland ahaan anagoo maanta halkan iskugu nimidnay waxaan rabnaa xaqayaga inaan dhacsano. waxaan u sheegaynaa labada golo ee wakiilada horta golaha wasiirada way mahadsan yihiin madaxweyne ku-xigeenku aad iyo aad bay u mahadsan yihiin golaha wasiirada way mahadsan yihiin kuwan fadhiidiinta ah ee kuraasada iyaguba sharci darrada ugu fadhiya ee muddo dhaafay ee tira dhaafay ee dhandhama jecesha waxaan leenahay wayna hortaala haddii aad ansixin weydiinoodna dumarka waxooga aad dhamaystiri weydiin ansixin doonin bari kamaal wax yar ba ku soo noqon doona halka oo codka laga sugayaa waa haween haween lafdhabarka Somaliland maanta waa haween kuwa wax doorta waa haween kuwa kursiga fuushiya waa haween kuwa wax diidana waxayna halkaasi ka hadashay gudoomiyaha garabka haweenka gobolka awdal ee xisbiga kulmiye Sahra aw Cilmi Maxamuud waxaanay tiri waxaan halkan baaq dheer iyo cod dheer baan uga dirayaa baarlamaanka Somaliland ee fadhiyay muddada badan fadhiyay ee bilaa sharciga waliba run ahaantii ku fadhiya. waxaan leenahay walaalahayo in badan ba soo fadhideen haweenkuna waxay ka mid yihiin cididii ugu weyneed ee idin soo saartay ee halka maanta 20 sano fadhidaan idin keentay ee idin la xisaabtamin xataa dumarka waxa uu soo kordhin ya weeyaan dumarka maanta kootada loo ansixiyay kootadiina hortaala horena way u hortaalay haddana way idin hortaala walaalayaal waa sii socotaan waxaan idin ka codsanaynaa inaad kootadii sida ugu dhaqso badan aad noogu ansixisaan haddii rabbi ka dhigo. magacaygu waa Nimco Cismaan Cumar waxaan ahay gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga UCID. intii waxaan aad ugu mahadcelinayaa aan u salaamayaa dalada nagaad oo mar walba iyadoo diidiilaha iyo taageeraha dumarka inay hamigooda kor u qaado jecel in badan ayayna inala soo shaqeeyeen runtii insha Allah siday dadaalayaan mar baynu soo bixi doonaa kuna guulwaad ku guuleysan doontaan dadaalka aad baan u mahadsantihiin baan idin leeyahay nagaad. waxa kale oo salaamayaa dhammaan saddexda xisbi dumarka jooga inaga isku garaba inaga isku dan waxba inaga ma galin waynu soo saarnay intiina ugu danaysanayso wayna soo saartay haddaba inaga ayaa hadnay dumarow. ugu dambeyntii halkaasi waxaa iyaguna ka hadlay haweenka musharaxiinta golaha wakiilada ee gobolka awdal oo iyaguna baaq u diray golaha wakiilada iyo guurtida Somaliland uguna baaqay inay ansixiyaan xeerka kootada haweenka si ay gobolkaasi uga soo baxaan.